dastuurka qaranka Somaliland qodobkiisa 22aad ayna waajib tahay in muwaadiniinta loo suurtageliyo inay gutaan xaqooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u yaala waddankan Somaliland. Komishanka doorashooyinku isagoo ogsoon in doorashadan qaranka Somaliland u soo jiiday sumcad badan iyadoo wakiilada caalamka ee goobjoogayaasha ahaa tiradoodu gaadhaysay waqtigii ugu badnaayeen oo ay gaadhaysay 60 qireen ah inay ku dhacday hanaan xor ah xalaal ah waafaqsanna nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka loo maamulo loona qabto. isagoo ka duulaya qodobada 83aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee waajibinaya habka loo dooranayo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah qaab doorasho oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyadoo isku lamaanan. Komishanku isagoo tixgelinaya qodobka 64aad xeerkiisa doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer number 20/2001 ee wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyay 2017 kadib markuu tiriyay iskuna geeyay xisaab ahaan codadka ansaxay kuwa xumaaday ama wax kama jiraanka aanu ka dhignay ee ka noqday ee ka yimi xafiisyada doorashooyinka ee goobaha doorasho degmo iyo gobolba ee jamhuuriyadda isla markaana xisaab ahaan iyo sharci ahaan ku qancay natiijada ka soo baxday. kadib markuu arkay hubiyey kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday. Komishanka doorashooyinku isagoo tixraacaya qodobka 83aad firqadiisa 4aad ee dastuurka qaranka Somaliland kaas oo dhigaya sidan: waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu ku guuleysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan. Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 64aad firqadiisa 4aad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 Noofambar 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid